inta badan liiska cusub ee xubnaha golaha wasiirada ayaa ku cusub masraxa siyaasadda waddanka waana shakhsiyaad aanay dad badani filayn inay ku soo baxayaan gole si weyn ay ugu loolamayeen siyaasiyiin in dhawaalaba ka dhex muuqday golayaasha dowladda federaalka liiskan oo ka kooban 20 wasiir ayaa waxaa warfidiyeenka u akhriyay afhayeenka xafiiska ra'iisul wasaaraha ridwaan xaaji cabdiweli maxamed cumar carte ra'iisul wasaare ku-xigeen ahna wasiirka shaqada dhalinyarada iyo isboortiga axmed xasan gaboobe wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha diinta cabdiraxmaan maxamed xuseen wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka maxamed aadan ibraahim farageeti wasaaradda maaliyadda cabdulqaadir sheekh cali diini wasaaradda gaashaandhigga cabdisalaan hadliye cumar wasaaradda arrimaha dibadda khadra bashiir cali wasaaradda waxbarashada fahad yaasiin xaaji daahir wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda cabdiraxmaan yuusuf cali caynte wasaaradda qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga nuur faarax xirsi wasaaradda dastuurka guuleed xuseen qaasim wasaaradda warfaafinta iyo isgaarsiinta cali axmed jaamac jaangeli wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada siciid xuseen ciid wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa cali xasan cusmaan wasaaradda beeraha xasan axmed muudey wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha saalax sheekh cusmaan muuse wasaaradda howlaha guud iyo dib u dhiska sahre maxamed cali samatar wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha maxamed mukhtaar ibraahim wasaaradda kalluumaysiga iyo khayraadka badda cabdirasaaq cumar maxamed wasaaradda batroolka biyaha iyo khayraadka dabiiciga xaawa xasan maxamed wasaaradda caafimaadka